والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وأنا دين سلامي دمان ولا ليغا الصوماليات بل والباجوكتان الله سبحانه وتعالى هدونو قدرا waxaan halkii ka sii wadi doonaa buuggii 4000 essential English words buugga saddexaad cutubkii markaasi toddobaad beejkii 44aad qaybtiisa labaad ayaan sii wadi doonaa Allah haduu qadara. tobankii erey aan soo qaadanay shalay ee cutubkii toddobaad, tobankii erey ee ka haray ee maanta qaadan doona. tobankii erey ee ugu horeeya maanta ereyga ugu horeeya waxa uu yahay horizon. Horizon waxa la yiraahdaa ili ku wareertay, waa xariiqa u dhaxeeyo dhulka iyo cirka meesha isaga imaadaan. xariiqa u dhaxeeyo waxa la yiraahdaa horizon ama ili ku wareertay, labaas baa la yiraahdaa. Horizon waxa la is aware waa halka the sky cirku looks like ugu ogyahay, it means inuu kala kulmo the ground dhulka uu kala kulmo. The sun waxa la yiraahdaa qoraxdu deep waxay gashay blue hoos ay ka gashay the horizon leenka markaas isaga imaadaan dhulka iyo cirka. waxa la yiraahdaa ereyga xig waxa waa royal, daacad u ah. waxa waaye loyal hadda aragta waa aad daacad ugu ah markaasi. To be royal inaad markaas daacad u noqotaa to something shay or someone qof is to agree waa inaad ku raacdaa qofkaasi. To always mar walba help them inaad caawisaa. The three friends saddexda saaxiibood are very loyal, daacad ay isku yihiin to each other mid kale daacad ay isku yihiin. ereyga xiga waxa waa mayor, waa duqa magaalada ama duqda magaalada ay waxa la yiraahdaa mayor. waxa la markaas the mayor is a person waa qof in a judge ee xukuma of a city, magaalada qofka xukuma ayaa waxa la yiraahdaa mayor, duqa magaalada ama duqda magaalada. The mayor of my town waxa uu yiri markaasi duqda magaalada ee markaasi xukuma my hometown halka aan ka soo jeeda is a quite powerful speaker, waa codkar markaas awood leh oo degan way markaasi. ereygan xiga waxa uu yiri markaasi mutual waxa la yiraahdaa wadaagis si siman loo wadaago ayaa waxa la yiraahdaa mutual. shay si siman inta loo wadaago ama jacayl ha ahaado ama shay kale ha ahaado, wax walba noqoto ama dareen ha ahaado, in si siman loo wadaago ay waxa la yiraahdaa mutual. If something shay is haduu yahay mutual mid markaasi la wadaaga it shaygaas is felt waxa la dareemayaa the same way hab isku mid ah by two or more people. dadkaas waxay markaas u dareemayaan shaygaasi si isku mid ah leeyahay markaas. Roberto ninka la leeyahay likes wuxuu jecel yahay Sarah ayuu jecel yahay. The feeling jacaylkaas uu jecel yahay ama dareenkaasna is a mutual, waa mid ay ka siman yihiin oo kaligiis ma aha. Overweight xadkiisii culeysnimo dhaafay ayaa la yiraahdaa overweight. Over ka dul maray weight culeyska xaddigii caadiga ahaa ee loogu talagalay ka sara maray. If someone hadii qof is u yahay overweight mid ka dul maray xaddigiisa caadiga loogu talagalay, they qofkaas are very fat, aad iyo aad ayuu cayilan yahay la yiraahdaa. Roger ninka la yiraahdo eats wuxuu cunaa too much, wax badan ayuu cunidiisa ayaa badan. So sidaa darteed now haddana is overweight, waxa waaye culeyskiisii culeys ka tan badan ayuu noqday. Refuge waxa waaye qolka ama markaasi goob badbaado ayaa waxa la yiraahdaa refugee maaha oo qaxooti maaha. refugee markii la yiraahdo waa qaxootiga halka marka ay intay meel ka baxaan oo meel ay degaan halkaas ay degayaan ay ku badbaadayaan oo markaas hoy ahaan ay u noqonaysa waxa la yiraahdaa refuge ayaa la yiraahdaa, waa hoy badbaado ayaa la yiraahdaa. refuge waxa la isbeleys waa meel where halkaas you go to be safe, adu aada inaad ku nabad gasha ama ku badqabta. When it started markuu bilowday markaasi to rain roobka markuu bilowday she found waxay heshay refuge meel badbaado in the house guriga ayay ka heshay ayaa la yiraahdaa markaasi. ereyga xiga waxa waaye restore waa soo celin ama sidoodii hore ku soo celin ama meeshoodii hore in shay lagu soo celiyaa ayaa waxa la yiraahdaa restore. inta badan mobilada waan ku aragnaa restoregaas wuxuu u taagan yahay soo celin oo ah sidoodii hore shayga ku soo celin. sababtoo ah programyo badan inta la galay programyo inta laga bedelay ayuu soo qasmay markaas waxa lagu leeyahay restore mare. sababta restore loo maxaa
soo celin waa shay in meeshoodii aad ku soo celisaa programkii lagu keenay hadda uu ka soo bilaabmo ayaa restore la yiraahdaa waa soo celin restore marka waxaa yiri to restore something inaad shay markaas soo celisaa to put it back waa inaad ku soo celisaa shaygii the way habkii it was uu ahaa markaas Victor ninka la yiraahdo restore wuxuu soo celiyay the old car wuxuu markaas soo celiyay oo sidoodii uu ku soo celiyay markaas the old car gaariga markaas duuga ahaa rab waxa waa daliigis in markaas lug ama madax ama duud ama calool inta la riixo oo wilba inta badan waxaan sameeynaa Soomaali ahaan biyo kulul iyo markaas saliid macsar iyo wax inta sameeyno qofka markuu lugta ama wax meel ka soo gaarto laga daldaligaas waxa loo yaqaanaa rab liirada rab something shay in markaas la daldiga is to put on it waa in markaas la saara and move misna aad dhaqaysa yuhan gacantaada back and forth adoo hore iyo gadaalba u wada macnaha daldaliigaayo maamis feet hooy lugteeda ama cagteeda sir uu xanuuna where sir waa xanuunay soo sidaadada she rabbit waxay markaasi daldaliigtay them cagihi ayay markaas daldaliigtay waxa la yiraahdaa senses waa dareemo shan dareemo bil aadamka caadiyan uu leeyahay oo markaasi araga maqalka taabashada dhadhanka urinta intaas waay shantaas marka ayaa waxa la yiraahdaa senses dareemaya you senses dareemayaasha are how waa sida you see aad wax u aragta dareemayaasha laga jeedaa tastes wax u dhadhamisa hear aad markaas wax maqashaa feel aad u dareentaa and smell misna uu ta feel dareemahan marka waxa iska leh maqaarka haye waxa la tusaalaha it would be hard waxaad arkaanaysa to life inaad noolaataa without your five senses shantaada dareem la'aantood inaad noolaataa aad ayay dhibaato u noqonaysaa ayaa la yiri ereygaasi marka ereyga nooxiga waxa uu yahay markaasi veterinarian waxa la yiraahdaa qofka dhakhtarka ah ee ku takhasusa caafimaadka xayawaanada aanan bil aadamka ahayn ayaa waxa la yiraahdaa veterinarian waxa la leeyahay markaasi doctor waa dhakhtar dadkaas oo takes care ka taxadira of animals xayawaanada wanda gabadha la yiraahdo become waxay noqotay veterinarian ay noqotay because maxay yeelan she loves waxay jeceshahay dogs ay jeceshahay halkaas ayaan ku soo gabagabeynayna cashirkeeni aad iyo aad ay u mahadsantihiin السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.